Iiraan iyo Mareykanka ayaa gaaray xabad joojin ku meel gaar ah oo socon doonta muddo 2 toddobaad ah kadib xiisad militari oo sii kordhaysay oo khatar gelisay amniga gobolka Bariga Dhexe iyo kan caalamka. Ilo diblomaasiyadeed ayaa sheegaya in heshiiskan uu ka kooban yahay qodobo dhowr ah oo muhiim u ah amniga gobolka iyo kan caalamka, kuwaas oo ay ka mid yihiin joojinta dhammaan weerarada militari. Labada dhinac ayaa waxay isku raaceen in la hakiyo duqeymaha iyo weerarada tooska ah iyo kuwa ay wakiilada ka fulinayaan gobolka. Xakameynta dhaqdhaqaaqa ciidanka waa qodob ka mid ah qodobada lagu heshiiyey, waxaana la isku afgartay in la yareeyo dhaqdhaqaaqyada militari ee kicin kara xiisad hor leh. Ilaalinta marinada muhiimka ah, gaar ahaan marinka Hormuz oo muhiim u ah ganacsiga shidaalka caalamka, ayaa ka mid ah qodobada ay ku heshiiyeen Iiraan iyo Mareykanka. Sidoo kale, in la bilaabo wada hadal siyaasadeed ayaa qayb ka ah qodobada. Labada dhinac waxay ogolaadeen in la bilaabo wada hadallo ku saabsan arrimaha muranka dhaliyay sida barnaamijka nukliyeerka iyo saameynta gobolka. Sidoo kale, qodobada la isku raacay ayaa waxaa ka mid ah in dhexdhexaadiyaal caalami ah loo xilsaaro heshiiskan. Dalal dhexdhexaad ah ayaa sii wadi doona ayaa la yiri kormeerka iyo fududeynta wada hadalladani. Haddaba, Iiraan iyo Mareykanka maxay ka yiraahdeen heshiiskani? Mas'uuliyiin Mareykan ah ayaa sheegay in heshiiskan uu yahay tallaabo laga maarmaan ah oo lagu dejinayo xiisadda isla markaana lagu siinayo fursad diblomaasiyadeed. Waxay sidoo kale adkeeyeen in Mareykanku uu wali ay ka go'an tahay ilaalinta danihiisa iyo xulufadiisa gobolka. Dhankeeda, dowladda Iiraan ayaa sheegtay in xabad joojintani ay tahay guul diblomaasiyadeed oo muujinaysa in cadaadis militari uusan xal ahayn. Waxay sidoo kale ku baaqday in la joojiyo unqabataynta iyo in la ixtiraamo madaxbannaanida dalka Iiraan. Falanqeeyaasha siyaasadda iyo kuwa amniga ayaa qaba aragtiyo kala duwan. Qaarkood ayaa waxay aaminsan yihiin in heshiiskan uu yahay fursad dahabi ah oo lagu yareyn karo colaadda muddada dheer jirtay. Qaar kale ayaa waxay aaminsan yihiin in heshiiskan uu yahay mid jilicsan maadaama uusan wax badan ka qabanin asalka khilaafka. Qaarkood ayaa waxay aaminsan yihiin in kooxo ka jira gobolkan ay arqaladeyn karaan hirgelinta heshiiskani. Qaramada Midoobay iyo dalal badan oo caalamka ah ayaa si weyn u soo dhaweeyay heshiiskan, iyagoo ku baaqay in laga faa'iideysto si loo gaaro xal waara. Dalalka ku tiirsan shidaalka gobolka ayaa si gaar ah u soo dhaweeyay, iyagoo muujinaya farxad maadaama heshiiskan uu yareyn karo qalqalka suuqyada caalamiga ah. Heshiiskan ku meel gaarka ah ee xabad joojinta 2 toddobaad ah ayaa noqon doona tijaabo muhiim ah. Haddii la ixtiraamo heshiiska, waxaa suuragal ah in muddada xabad joojinta la kordhiyo, wada hadallada loo bedelo heshiis rasmi ah, iyo xiisadda gobolka oo si tartiib ah loo dejiyo. Si kastaba ha ahaatee, haddii ay dhacaan jabin, waxaa suuragal ah in xaaladdu ay dib ugu laabato heerkii hore ama kasii xumaata. Ugu dambeyntii, heshiiskan xabad joojinta u dhexeeya Iiraan iyo Mareykanka waa tallaabo muhiim ah, balse weli ku meel gaar ah oo u baahan dadaal joogto ah si uu u noqdo mid waara.